mahadcelinayaa soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii Maxaas halgankan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagula jiro ka hor ayay magaalo ahaan ayadu ay xor ahayd horta baahida airborka waxa keentay meeshii yareedo Maxaas aheedo go'needo jasiirada aheedo meel kale looga imaan kara aanay jirin in cirka looga soo degmo ogiye maanta horta Maxaas meeshii ma aha waata oo madaxweynuhu sheegayo oo inta dad ka timaad iyo habeen madow hadaad balweyne ka soo baxday iyo subax dad ka soo baxday inta ka dhaxle aad Maxaas imaanayso horta baahidii shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiye ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay ceelka iyo dhakhtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweyn socdo wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysay ee xureynta kadib xarunta maamulka iyo maxaan ku raadayay dhismihii dawladda loo dhisay inay ayada koow horta ay tahay degmooyinka kale ama hadda laga xoreeyo ama horay xorha u ahaadaane dalka oo dhan insha Allah taala wax siman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xiriira ayaa dawladdu ay ka qaban doontaa fayskan dagaalka markaan ka soo jeesano waana si bilaabaynaayo meeshii hadba xorowdo wixii loo heli karo waa geenayna airborka aad codsateen Maxaas waa loo sameeynaa hadii ay laakiin waxaan idinka rabaa waa baahi dhab oo jirto oo dareenkeedu idinku weyn yahay sida mas'uuliyiintii madaxdii dadka hadlay ay u wada celceliyeen aan dareemayaa laakiin dhameystirka shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noo leh geedka kurdada la yiraahdo aad kor intaad ka xeerto aad maxaa beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri u yimaado kurda iyo meeshiisa kala ahaanayaan shabaab waa kurda jirida bixin u baahan yahay jirida bixintiisa na reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaniin عقيدة ما كي جوكتنا كهرب أنت أسوء شيئين شباب إسكعلية لمن كان عقيدة الإسلام كدين الإسلام كقيمها بدن أي نوغصو قبضين لكن وحان ربعنا ندي شيء وذا دنا معها دين الشقة كمرة وكوح مافيا أو مروين أو دين أسوها جوجتي واي مرضي أنا عندنا كقارنا رنادتكم إنه وضع أركان مافيا نمدود برعد جدك تاجن قاطع الطريقة أي دينتو كهذا الشيء وحي كدويهن مره نفتيان أمانك هيرين مالكيان أمانك هيرين ضدكيان أمانك هيرين شرفتي كرامتي عزي أمانك هيرين دينتيان أمانك هيرين لمالكو كنت المامي كراني وان امتحان إلهي ودنبيلي ورم قلنين لو قدايه هذا الإلهي وأن قلنا الحمد لله كتاب كيسنا قعنت بديكتان كو هيسنا نمك كبين شيغاين وا اسك دعينا hadii dalkan ay soo mari jirtay dawlad diinta laga ilaaliyo oo ayada diinta laga difaaco waa ka soo gudubna maanta dawlad diinta leh oo horumarinteeda iyo quruxdeeda iyo difaaceeda inay ka ilaaliso waxa oo maxaan ku raaday waxaan khawaarijta ay wataan oo kala banaanka looga soo darsanay aan diinka ahayn دولة dadka soo dawlad ilaaliso amni u sugto soo u baahan diintuna intaas oo kale u baahan tahay hadii kale shaydaan kasta meel inta ka soo galo warxan loo joogin ku darsana lagu darsamaayo ogolaameen ummad muslimiin ah sunniyiin ah oo sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku toosan oo maxaan ku raaday maxaan ku shaafiiciyiin ah oo maxaan ku raaday ahlus sunna wal jamaa ahana kala leexanayna وحوجينا وحي بنانك لغا يميدين iyo wixii meelaha laga soo dhoodhoobay shalay daraad yimideen abta ummadan saaf laguma islaami shalay xoog laguma islaami qoorka gooyo laguma islaami faham ilaahay uu si rabitaankoodii ku islaamay
maantana diinta intaasay ku haystaan boqolkiiba boqol muslimiin ku yihiin diintii aan ku qasbaanin kale intuu ka yimid kumanaan sano ka hor sidaas 1000 sano ka hor sidaas ahaayeen waxay tahay maanta diinta lagu qasbaayo oo loo keenayo cusub maanta la keenayo 1000 sano tii ay soo haysatay ku dhasheen ku dhaqmeen aan ahayn diintana ilaahay nimcadiisa waaye waxyaabaha ugu horeeyo ilaahay nagu nimcaystay ka mid tahay uma ogolin in maxaan ku yiraahdaa dulmi iyo dulinimo loo isticmaalo qodobkaas aan ka korna marka khawaarijta علماتين دمانتين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يسفوين كود يسدوا أطل ما بواتقان لقما آيات أخص بدنا لقما حديث دليل شبدنا لكن حيتره مالحون إلهيين أو وحي كانوا دينتو أي إراليسي ومحانكو إرادا يوضن أي محوها يدين عمرين كده ليان كرامة قفقة إرالمة مال كيسة يعد جيس شرفتيسه وحيابها ugu horeeyo asaasiyaadka diinta hal ilaaliyo ay tiri kamid tahay qofka muslimkaana loo baneeyay inuu u dhinto asoo daafacay tiyan maanta marka aan taagana marka nimankaasi saad hore ugu fahamteen waaye faham idinku ma yara inta dhimanna waa dhameystirayna dhulkiina waa xoreysateen wiilashiina idin xukumaaya ee xukun kale oo qof kale meel laga soo dhoofiyo laga soo waariday idin imaan maayo kan idin xukumaaya ama gabadha idin xukumaysa waa ka doorateen ka maamulka idin haynaayo waa ka u dhiibateen ma dhacayso in meel kale laga keenay gobol kale Allah ka dhigay xataa iska daaf jamhuuriyad iyo dibad iyo iska daaf waayo marka ilaahay idinkiis dhulku waa xor tarda iyo teedaan maxaan ku yiraahdaa iyo sooman iyo maxaan ku yiraahdaa xagga u bax buuro burta tag aboorey iyo maxaan ku yiraahdaa iyo maxaan ku yiraahdaa mar jalalaqsi muxuu ahay magaaladeedii tag ceel qoryaale iyo libi geed faarax iyo maxaan ku yiraahdaa aad bashiir tag meel walba dalkaani maanta waa xor gobolka Hiiraan ilaahay inkiis gobolka Shabeellada Dhexe sidaad aragteen iyo xawligaad aragteen uga socotaa aadan yabaalad intan adika aad ka kulaaleysaan xaggan looga soo socda ka hartay ayadana waa ka bixinaynaa galmudug sidoo kale waad aragteen dhul badan oo galmudug ka tirsan sida ay magaaladan ayadoo kale xoray ahaayeen shabaab mar hore iska saareen culimo sida adika oo kala ah ayaana ka saaray shabaab oo u diiday inay soo caga dhigtaan iyo dadka deegaanka iskaashaday intii aad adikuna samaysay inta dhimanna hadday u taagan yihiin inta dhiman oo inta badan ay ka bixiyeen inta kalena ay u socdaan ayadana galmudug oo dhan aadan yabaal iyo xaradheere meesha noo hartay waa ceelbuur iyo galhareeri iyo jacar ayaguna sidoo kale dhulka noo haray waa dhulkeennii annaga iskale dhul reer hebel iyo dhul kale maaha waa dhulkeennii annaga ah dadka iskale reer hebelkii aan nahay kuwii deganaayaan nahay kuwii dal ahaan iyo degaan ahaan u lahaanayaan nahay shabaabna u daysan mayn haddii aan la yidhaah marka muxuu ahaay meeshaas intaan ka baxna ilaa dhulkan ilaa xeebta la isku furo koonfur galbeed Soomaaliya dowlad goboleedka la yiraahdo dadaalka ka dhacay maalin dhaweed waa maqasheen haddana dadaalkii ugu weynaayay abaabulkii ugu xoog badnaa ka socdo mar dhow koonfur galbeed oo ayaduna aan shabaab waa la barta hadda intay adikeedu ku qaadatay dadka dhan ku qaadamaysa dadka inta harta ku qaadamaysa hadii aan la yiraahdo koonfur galbeed oo baabuurkii xamar ka baxa oo baydhabo taga oo kii baydhabo ka baxa oo xudur taga oo kii maxaan ku raabay baydhabo ka baxa oo sidii Soomaalida ganacsatay oo jirtay oo mandheero u taga oo kor iyo bari loo kala socdo mar dhow ilaahay idinkiis aydan arkaysa dadkeedii xawliga abaabulka ku wadaan aanan u leeyahay sidaas daraadii